أنا أدونك ولقي مسكديننا تهريبه لكن هذا وحان رباه إن أن بروبيو هدف كيجا يرجع إذا أن رميو وأن سقطه ماركتي وضن كان يأنا أنا قم بوضن kulanti waxaan wanaagsan dabadeel malbo dunida ka joogtaan waa aniga Zahaboy halkan daawanaysan waa maqal tube kusoo dhawaada muuqaalkana maanta adawada inta muuqaalka ugu degnan hadii ay marka ku wareysay aad YouTube kan soo boqoto hay'adina subscribe sartid sibaad wajid barnaamijyada quruxda badan aan barto mar walba kusoo gudbino iyo waxa dunida ka dhacay sidoo kale hadii hore noo sii jiro jeedsan video like sar si uu gaaro dad badan like waxay inaga caawinaysaa inuu muuqaalka meel walba u gaaro hadaw kusoo dhawaada barnaamijkana maanta hadaw waxa baraha bulshada qabsaday saacadii ugu dambeeyay muuqaal markaasi ee video ee soo dubtay Shaadiya Sharaf hadaw muuqaalkani muxuu ku saabsan yahay muxuu ka kooban yahay Shaadiya Sharaf ayaa muuqaal ee ku sheegayso markaasi in leedahay waxaan go'aansaday ugu dambeyntii inaan tahriibo waa la yaabo dadka ayaa ilaa hadda yaabo arintanba ayay ka dhaadhacday Shaadiya Sharaf maxaa sababay maxaana ku qasbay maxaana keenay maanta inay tahriibto arin la yaabo way hadaw Shaadiya Sharaf ayaa barteeda markaas soo dhigtay oo sheegayso waxaan rabaa tahriibka la sheegayo ugu dambeyntii inaan ka wardoono oo dalkaasi Mareykan aan galo ayaa la sheegay hadaw dadka ayaa islaam maxaa Shaadiya Sharaf Muqdisho waxay ahayd fanaanad ugu kalkacsan halkaasna ee markaasi ay ahayd ganacsada marba wadan u safraysay saacadii ugu dambeysay hadaw maxaa sababay arintan maxaa keenay ayay isleen balse arintan ayaa ilaa hadda la yaabanay dadka barta commentiga waxa uu soo qoraan Shaadiya Sharaf waxa tahay qof maanta cunug uu jooga tahriibna ma gali kartid arinta maanta ha ku degdegin iska joog waayo waxa tahriib markii galay oo la sheegay fanaaniin badan inay tahriibeen markaas milyaanka aydan ay ku dirto oo bartaasi xafsiga lagu ciqaabay ayaa la leeyahay bado milyaanka ayaa waxaan ognahay markii kooris inay xafsiga barkaasi loola tiigsaday oo xafsiga la dhaxdhigay oo xafsigaas ku yaalo qayb kamid ah xuduudda Mexico oo ku yaala hado dadka ayaa arintan walbahaar ku dhalisay Shaadiya Sharaf inay markii dambe ay tahriibto waa arin la yaabo hado waxaan ognahay Shaadiya Sharaf inay ahayd fanaanad markaasi Muqdisho aad loogu ixtiraamo hadana fankeeda uu ahay fan markaasi masrax u saaranay inkastoo aan ognahay fanka inay mar hore ugu dambeysay balse markaasi waxay ku biirtay ganacsad markaasi ay sameysay Muqdisho hadaw Shaadiya Sharaf ayaa waxay safrin jirtay markaasi suuq geyn oo markaasi ganacsigeeda ay markaasi horumarintiisa ay ku jirtay markaasi ay ku mashquulsan balse taas arinta ayaa markaba iska bedelay oo Shaadiya Sharaf ayaa muuqaal degdeg markaasi soo dubtay oo sheegayso inay markaasi tahriibeyso oo markii dambana ay ka doonayso tahriibkan waliyo waa maqli jiray mana ku fikirtin balse ugu dambeyntii waxaan go'aan ku gaaray anoo maskaxday maankay joogto inaan tahriib ayay arintani ay dadka ka murugoodeen taageerashada ayaa isla kacay sidoo kale ay leeyihiin Shaadiya Sharaf arintan waa arin xun ha ku degdeen oo maanta waxa tahay qof maanta magaalkiisa u shidantay iyo magaalkiisa maanta dhacsan kara ayaa tahay maxaa way sababta ku qasbayso maxaa way duruufna kuma geysanin maxaa ka doonaysaa tahriib ay leedahay sidoo kale waxa taasita family buuxa ayaa tahay iyo cunug ayaa haysta marka dadkaasi haya dayacin ummadda Soomaaliyeed ayaa ku baahan hanaga tagin ayay leeyihiin dadka balse arintan ayaa la yaabinaya ilaa hadda rumiya mise Shaadiya Sharaf waxa ay soo dunta prank miya midas hadii ay prank tahay markaasi wixii jiro oo agaarka ay imaanaysa markaasi way soo bixi doontaa waayo wixii la qariyo mar ay binaanka imaadaan Shaadiya Sharaf hadii ay arintan prank ka tahayna baraha bulshadu ay imaanaysaa hadii ay markaas roon ka tahayna waa la arki doonaa tahriibkeeda ayaa markaas loo arki doonaa hadaw fanaaniinta Soomaali ayaa si badanay inay tahriibaan markaas dalkaasi Mareykan ay u tahriibaan oo la sheegayo inuu tahriibku u fududaado markaas dadka Soomaalida laga dhacsiiyay qayb ka mid Mexico markaas tahriib loo galay Mexico xuduudda markii la gaaran darbiga weyn oo Mexico ku yaalo markaas laga buudayo oo ninba dhinac uu kala jafsanayo saasna Mareykan lagu galayo oo isleeyin Soomaalida laga dhaadhicay inuu soo loo qabanaynin wax ma gafan uusan jirin meeshaas ayaa Mareykan ka jiraysa war Mareykan maxaa niga horeeya warinta wujuudin war wadankiina ku qanacsanaada war Soomaalidan ilaa hadda tahriib ayaa laga kari laayay ma aqaano marba marka ka dambayso qofkii wax sheego ayay aaminayaan oo markaasi tahriibka ayaa loo bumboonina hadoo waxaan halkan ku bangaadinayna dadka tahriibka mar walba jecelna aadan tahriibka iska day waayo tahriib dadka hore way tahriibeen waxaad ka faa'iideysan mala waayo hadii hadii aad baxdid 5 sano waa inaad qoxotin ma gasha
kadibadna ayaad sharci maraykan helaysaa. laakiin intaas dhan waxaa ka horeysa rafaad iyo dhib iyo dheef inay u martid. Soomaalidana waxay jeceliin hal mar dalalalam ababa dalaq inay dhahaan oo mar walba si fudud ay ku helaan maanta iyo laakiin arrintan ayaa mar walba wacyigelin la sameeyey ilaa haddaba oo wax arrintaasi jalaq u siiyay malaha. balse waxaan dadka aan leenahay iska dayo oo waxaan ku dhaqaaqaysin iska joojiya ayaa leenahay. sidoo kale ma aqaan arrintan ilaa hadda way sii badanaysaa oo Soomaalida marka dambe hadda saacadanba waxa arrinta la yaab leh fanaaniinta waaweynaa oo maanta dadka caalamka indhahooda hayay ayaaba maanta waxay go'aansanayaan inay taariibaanba wadanka ay ka baxaan. ma aqaan sababta ugu kaliftay, ma aqaan waxa ku kalifay ma aqaan, balse wixii jira cakarka iyo maanta wana halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa daawada. haddii tahay marka ku waraysa channelka soo boqoto ha ilowina subscribe sartid. sidoo kale haddii aad sii joogtid video like sar si gaar dad badan ma jirin.